waxa weerarka soo jeeda xawmay waana iskala xaasas badan hay sheegashiya dhabna ilaahay ba iga hay baashana daawada qof walba inta waa ila warniyo adoo cabanaysa ambasaasa alaabtii aan dhaxlo wajira maxaa cabashi maxaa keena awood darrida in casariirta haweenka xageeda macnaha hamiyar ay ka jirto abaalka loo isticmaalo hamiyaradu waa ragga soo qaabisho waay odayaal maanta waxaan soo booqannay Xuseen Adeero oo caan ku ah iibka subaga qubaha iyo alaab kale oo aan ka qarnay oo soo noo sheegay xeebaha waddankeena Soomaaliya waxaa laga helaa xayawaanaad kala duwan kuwaas oo siyaabo kala duwan looga faa'iideysto kuwa ay ka mid yihiin malayga qubada iyo kuwa kale ayaa loo isticmaalaa borotiin iyo sidoo kale in cudurrada qaar ay dawo u noqdaan waa wax loo baahan yahay iyaga laftooda u baahan waan u baahnaba rag kale u baahan saanaagto ilmay ku daadinay waxna gurigeeda ugu soo tagin maaragtay ugu soo tagay badan oo tibiyaacta kama weyn dadka soo koriya guriga horreey guriga ilaa wali u joogo marka ha u joogaan wax ugu soo tagin waxay nafaqa guriga ka aabaheeda hooyada ka cunto ugu soo tagin mehay gurigeeda waxay cudurka gurigeeda uga soo tagtay ninka hadii ka weysanaad kuma joogaysa cudurkaas ka caawinaya ninkaas marka ku soo dhawaada Soomaali weyn ee karqoba leeyahay wuxuu daaw u yahay ximita taranka biyo degdeg baalku ka jala aba gaabtu daaw u yahay baalka asoo aan diyaarsan waa kana asoo diyaarsan waa kana waa budada sidii loo cunaa aniga hadda u diyaarshay qof walba macnaha sidii uu isticmaal lahayd ana u kala faafaahin doona shaan waa lagu darsan karaa aanana waa lagu isticmaali karaa malabna waa lagu darsan karaa Adeero hadalka si wata waxa uu sheegay in qubada dhowr magac ay kala leedahay qaarkoodna dawo u yihiin cudurrada gaaska xasaasiyadda tabarirada ragga iyo sidoo kale kuwa kale waa kan Adeero mar kale arrimaha si sharaxaya karqobo wuxuu daaw u yahay ximita taranka daciiftu daawiya iyo degdeg baalku ka jiro amba gaabto yaa qoonta yak soo xigtay yabo waxa ka soo xignay wax xigad uma baahno wax adiga hadda isticmaasho awoodda tayadooda aragtay waa inaad dadka gaarsiisada leedahay maxay saameyn ay leeyihiin ya saameynta ay leeyihiin waxa kamida awood oo kubcisa waay macnaha waxay ku soo caafimaad daro soo laabanaya ma jiro waxa nafaqo ilaahay u nasiiyo badanka soo baxaa waa wax kiimikayna ma ahan سألوا كلا قنصريا يسألوا كلا جرتان سألوا كلا جرتان أو يفاسي الله هاي نوعي ما لذا كلا دوان ما هل حبة لا يستعمل قصقبه وذكر قصقبه وقصقبه مركا وحنا الله استعمالها حماية التنك بيدك دقة بحالكو كاجل قفت أود الرأي هيسو عبدين عسكر عيشون وكان بود قصقص بود وبعياش صبصاص وجري أنا مرة والباس كاستعمالها به وحويرك صوت الحرمي وأنا اسكال حاسس بدن هاي sheegashiya dhabna ilaahay ba iga hay baashana daawada qof walba inta waa ila warniyo adoo cabanaysa ambasaasa alaabtii aan dhaxlo wajira maxaa cabashi maxaa keena dhulkeena Soomaaliya nimcooyin fara badan ayuu Allah subhanahu wa ta'ala ku manaystay kuwa ugu badan ayaa sidoo kale laga helaa xeebaheena dalka qubada waxaa lagu tilmaamay inay ka mid tahay waxyaabaha ugu wanaagsan ee borotiinada iyo dawooyinka kala duwan loo adeegsado kuwaas oo looga maarmi karo dawooyinka kiimikada Maxamed Ruunaay Somali TV Muqdisho shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub.